siyaasiga Salaad Cali Jelle oo Muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay xisbiyada dalka ka jira in looga baahan yahay ilaalinta sharciga dalka. Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed shalay lagu hakiyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, waxaana safarka oo markii dambe beledweyne ay ku tageen ku wehelinayay madaxweynihii dowladii tan ka horeysay Xasan Sheekh iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Salaad Cali Jelle ayaa sheegay dowladnimada Soomaaliya in wax badan la sugayay, dadaal badanna lagu bixiyay sidii Soomaaliya cagaheeda ay isugu taagi lahayd. waxa la maraa waa 3 sano oo qariib hal sano iyo waxba hara ciidan sugi karin ee aan mataqaana ku marmarsoonaysa in sharciya la jabiye sharciga hadii la jabiyo maxkamada loo dacwooda barlamaana lagu saxaa nidaamka dhexdiisa lagu saxaa laakiin qoray caaradiisan ku saxaa goorkan rabaan sidaan raba u hadlaa shalay markaan anigu jooga dadkan xirxiraaye shalay markaan xilka haayay colaad dagaalan qaaday degmooyin iyo gobolaan aan weerar ku qaaday dad baan xiraay dad baa aniga madaxayga ku xiranoon hore u xiranoo wili xiran maantana ma ogi ee waa cusbahay shalasaan u shaqeeyay iyo sidaan u fikirayay iyo xadgudubka aan sameeyay waqtigii yaray aan ilaabay 3 sano banaanka joogay 6 sano banaanka joogay taas macaadallaahi wax la aqbali kara ama Soomaaliya ay dib u aqbalayso ma ahan waxaan leeyahay marka mar labaad iyo mar saddexaad nidaamka ilaaliya la fihiina utura ha isdhibaatayna ummadda dhibaataha u keenina waxa idin deeqo waa shuruucdo lagu Shariif Sheekh Axmed oo xalay warbaahinta Muqdisho kula hadlay ayaa dhaliilay dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladdu aysan u dhaqmin si mas'uuliyad ay ku jirto. Waa xaalad siyaasadeed tii ugu adkeyd oo dowladda federaalka Soomaaliya ay wajahayso tan iyo inta ay dowladdan dhisan tahay, waxaana dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan inay jiraan tallaabooyin aan laga fiirsan oo labada dhinac ka careysiiyay.